London Somali Youth Forum chairman koodiya waxaan runtii maanta soo jeedinayaa arrintan ku saabsan African Union oo waliba nimanka Amazon la yiraahdo ee Soomaaliya loo xil saaray inay ammaan ku soo celiyaan al-shabaabna la dagaalamaan nimanka UN ta u xil saartay inay shaqada qabtaan waxay dalka ku joogaan sal sheegay 22,000 oo askara runtii as community ahaan shaqo wanaagsan bay soo qabteen iyagoo istaageerayaan Soomaali askarta iyo xubnaha dawladda muqdisho way xoriyeen in badan oo Soomaaliyana way xoriyeen laakiin waxa meesha su'aal saaran nimanka wax la xisaabtama ma jiraan markanu baaritaan badan oo cilmiyeeno xagga sharciga eegnay nimanka haday maanta dambi qof Soomaali ka galaan ay qof gaari jirsiiyaan qof kufsadaan ay dad guryahooda ka qaadaan wax nooc cadaatay meel laga la xisaabtami karo oo loo tagi karo ma jirto sharcigooda waxa ku qoran inay committee sameeyaan hadii qof dambi ka soo sheegto committee-gaana ma sameeyaan badanka because sharciga waxa ku qoran waa voluntary waa wax iyaga ka yimid noqdo way ikhtiyaarkood inay u sameeyaan committee-ga way anagu markaa runtii waxaan leenahay conference-ka London ee Soomaaliya soo socota bisha 12keeda May in aan isla xisaabtamin dadka lacagtiisa siiya dawladaha UN ta African Union dawladda Soomaaliya laakiin in xubnaha Soomaaliya lagu talagalay inay ammaan ku soo celiyaan in iyagana la xisaabtamo oo la yiraahdo dambi hadaad gashaan halkeeba la idinku tagaa haddii wadada la idinku tagaana shaqo ay resolve keeni weydo meel la taabanayo then halkeeba la isla tagaa international community maxkamadan soo tagnaa marka runtii wadooyinkaas oo dhan baan cadeyn waxa noo cadaatay nimanka dadka lacagta siiya dawladda Ingiriiska ay kamid tahay iyo European Union kaba lacag way bixiyaan laakiin waxa noo cadaatay kama warhayaan waxa lacagtooda lagu sameeyo ama way ka gaabsanayaan because ragani shaqay ku jiraan adag oo dad baa ka dhimanaya maalin kasta marka runtii anagu waxaan leenahay arrintan xuquuqul insaan weeye already report authoritative soo baxay oo ma taqaana oo miisaan leh oo Human Rights Watchdog group ka leeyahay qoreen ay leeyihiin intaas oo dumar way kufsadeen xerooyinkaana ku kufsadeen marka waxa also an investigation soo sameeyay qof kaliya oo loo xukumay inaan Soomaaliya kufsaday ma jiro oo reportkaas uu jiro taasina waxay noo cadeysay maaragtay inaanay meesha ka jirin la xisaabtan anigoo la hadlay dawladda British Ministerska Ingiriiska oo arrintan waraaqa ugu qorqoray waqti badan ugu qoriyay waxa ay cadaatay African Union waraaqaha u qoran inay baryayaan oo kale ay wax weydiinayaan markaan waxaan leenahay hadalka macaan diblomaasiyadda laguma sii deyn karo xuquuqda dadka Soomaalida oo waliba hooyooyinka iyo carruurta marka runtii anagu as community ahaan London waxaan soo saarnay inaynu agenda-ga ku darsanno conference in arrinta anagu aan ka warwarsanahay meelna loogu tago oo dadka ka mas'uulana aan la kulanno kulanku waa gooni laakiin waxaan doonaynaa inay noo cadaato wadada xuquuqda aan xuquuqdeedu u marayno haddii ummad Soomaali wax soo sheegato oo dambi laga soo galo conference-ka soo socota oo taageerayna danta Soomaaliya ku jirta laakiin waxaan isleenahay wadada si loo xaadha already shaqooyinka la soo qabtay way wanaagsantahay laakiin meelaha jira aan wali la taaban oo u baahan in ay arrintan wax laga qabto ta kale aan ku daraya waxa weeyaan waxa la yiraahdaa extremism-ku batay terrorism-ku way badatay nimankan waxay u joogaan inay terrorism-ka gaabiyaan ay ma taqaanaa dalka ka xoreeyaan laakiin waxa noo cadaatay wadooyinkay marayaan baa terrorism-ka fidinayaba oo haddii maanta dad kufsadaan oo haddii maanta dad dilaan oo la og yahay inaan wada loo maray oo xalna loo hayn oo la xisaabtamay waxay cadeynaysaa dadka public ah inaanay meesha aanay ka jirin sharci marka taasina laga yaabaa inay tiigsadaan inay nimankii lala dagaalamayay la taageero oo taageerkooda kor soo kaco marka runtii
annagu waxaan leenahay arrintan aad iyo aad baan uga warwarsanahay waxaana loo baahan yahay inay communitygu isu yimaadaan arrintan dowladda ingiriiska ay leeyihiin kala xisaabtamaan oo lacagta siiya African Union shirkanna sameeyey laga yaabaa imika in lacagaha bixinta iyo waxa ka yaacayaan laakiin arrintani lacaga bixin way ka weynta waa xuquuqdii bini'aadanka weeye